سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. walaalayaal maanta taariikhdu waxa weeyaan waa 25 bishii sagaalaad sanadii 2022. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali weyn meel kasta oo adduunyada kaga nool yihiin. salaanta islaamka ee xaqa kadib maanta codkaygan waxa weeye waa su'aal aan u soo bandhigayo Soomaali weyn meel kasta oo ku nooshahay. su'aashaas iyo waa maxay xalkeedu su'aashu waxay tahay haddii su'aal la isweydiiyo la yidhaahdo war maxaad la seexan weyday oo shakhsigaasi waxaa laga yaabaa inuu xanuun haye. xanuunadu marka way noocyo badan yihiin. sida awgeed ruuxu markii uu seexan waayo wuxuu dhahaa ama dhibaato la seexan waayo hadduuba kaba soo qaad wax lala garan waayo oo tala dad ka dhaxaysay qofkii lala garan waayo inta badan waa xanuun maskaxeed in dhibaatooyin ma dhammaata ah oo tusaale ahaan ki gumaysigu ummadda ku hayo qayb ka mid ah Soomaalida ku hayo kale iyadana waa mid jid iyo maskax ah labadaba. sida awgeed waxaa la yiraahdaa maciil sokeeyaa ku haya mise ciddi salkeed baa laga hayaa. waxaan ka hadlahayaa haddaan anigu xalay seexan waayey waxaan xalay la seexan waayey su'aashan oo ah qabyaaladda oo aynu dhahno qaadkow iyo qaadka oo aynu qaatuun dhihi karro. labadoodaas keebaa halis ku ah ummadda Soomaaliyeed meel kastoo adduunyada ku nooshahay. sida awgeed su'aashaas markaan la seexan waayay anu toddobaadkan ayaa waxaan soo dhigay baraha bulshada oo aan su'aasha weydiinayo Soomaali weyn. sida awgeed waxa weeye shakhsi aan ku halqabsanayo ayaa jawaabtii u horeysay soo bixiyay isaga oo leh qaadka ayaa 100% halisan. sida awgeed qaadka muwaadinka aan ku halqabsanaya ugu soo hormaray ee ka bixiyay inuu jaadku halisan yahay labadooda ayaa waxaan siiyey faalla kooban. faalladaas kooban marka waxaan filayaa inay soo ururinayso dhibaatada uu qaad ku leeyahay. marka walaalayaal waxaad u fiirsataan faalladii oo kooban qabyaaladda qaawan iyo qaadka qaatu labadooda keebaa Soomaali weyn halis ku ah. waa su'aashii ee xanuunsay ee la soo kacay anu waxa uu soo horjawaabay isaga oo ku mahadsan muwaadin Soomaaliyeed aragtidiisa ku tilmaamay inuu qaadku 100% halis yahay. aniga oo muwaadinkii Soomaaliyeed ku halqabsanaya fadlan faalladan si fiican u dhageyso. waa runtaa inkasta oo ay labaduba halis ku yihiin ummadda Soomaaliyeed ee ku nool meel walba haddana waxa inala gudboon in aynaan u dayma la'aanin in qaadka iyo qabyaaladuba ay noqdeen ajendayaal aan anigu dhihi karo waa aragti qodo dheer oo aad moodo ama ay tahayba inay ajendayaasha ka soo curatay
asalka gumaystayaashii reer yurub ee ugu tunka weynaa ingiriisku british colonialism waxaana caddayn inoogu filan sida qaadka loogu beeray labada buuraley ee kenya miiraaga ka baxo iyo etoobiya qaadka la yidhaahdo harariga la magac baxay ee lagu bahdilayo ummadda soomaaliyeed waad aragtaan hogaamiyaasha soomaaliyeed dhibaatooyinka ay ku hayaan hogaamiyaasha kale ee geeska afrika ay ka mid yihiin kenya iyo etoobiya ee iyadana tabdhaha kaasoo xidhiir la leh khatarta qaadka iyo ummadda soomaaliyeed sida uu u gumaysanayo qaadka markii qabyaaladda laga soo reebo tan kale waxaa in la xuso habboon muwaadin soomaaliyeed oo la yidhahdo abubakar cawaale oo noqday muwaadin isku taagay la dagaalanka sunta cagaaran gaar ahaan waddanka ingiriiska oo uu ku guulaystay inuu daroogadaas laga mamnuuco carriga balse dhanka kale qaadka oo garaabadiisa oo la shiido waxaa loo dhoofiyaa waa waddamo fara badan oo uu ka mid yahay maraykanku oo axmaarada ameerikaanka ah ayaa waxaa loo ogol yahay in basbaaska ay midmidaha u yaqaanaan xawaashyada iyo daafida ay dhoofsan karaan sidaasna lagu fidnaynayo ummadda soomaaliyeed ee uu bahalkani bahdilay oo uu qayrkood ka reebay ee iyana tabdhaha macnihii waxaa loo ogol yahay waddamada qaarkood inay ethiopian communityga gaar ahaan axmaarada inay midmidaha iyo xawaashyadooda ay u dhoofsadaan dalalka dibadda gaar ahaan garaabadii oo la shiidaa saa loo dhoofinaya waxa lagu bahdilayana axmaara ma cuntee waa soomaali weyn fiiro gaara marka waa maxay xalku ee ku aadan qaadka soomaali dilooday iyo sidii loola dagaalami lahaa su-aashan run ahaantii su-aashan iyada oo mug weyn haddana waa in la helo hay-ad la dagaalanta qaadka oo soomaali weyn iska leedahay macnii soomaali weyn ay leedahay hay-ad la dagaalanta waa in la helaa fiiro gaara waxaan xusaynaa muwaadinka naftiisa u sacrifice gareeyey ee la yidhaahdo abubakar cawaale iyadana talaha laga weydiiyaan dhihi lahaa halkana waxaan ugu xusahayaa waa nin dadaalay oo mudan in lagu baraarujiyo shaqada ummadda soomaaliyeed u hayo codkan waxaa iska leh anigoo dhagax madoobe axmed sucaad ugaas maxameda australia waxaan rabaa marka inta aanan ka bixin in daroogadan ama jaadkan cagaarani uu asalkiisu labada qodob ee ah qayb oo xukun oo qabyaaladii lagu helay iyo qaadka in ay asalku siyaasaddan yurub leedahay waxaad ku garanaysaa markii soomaalidii firidhay ee qarxday ee daafaha adduunyada ku baxday ayaa waxay noqotay in laga dabageeyo haddana isagii sidaa awgeed waddamada yurub ka mid ah ayaa macnihii markaan waxaa isku soo hagaagay culayska iyo tiiraanyada dhibaatada jaadkaas aan ka walwalayo qoraalka soo bandhigay een haddana codkan u bedelahayo isla toddobaadkan waxaa social mediaha ka hadlahaya dhibaatada uu jaadku leeyahay saxaafadda dal ka mida yurub walaal si fiican u dhegaysa marka dalkaasi wuxuu mamnuucahayaa wuxuu qabqabtay si fiican u dhegayso warbixin ku saabsan booliiska waddanka Sweden oo ka hortagaya qaadka soo gala waddankooda waxa ay leeyihiin boortooyin baa laga soo buuxiyey qaad baa laga soo buuxiyey waxaa loo yaqaanaa qaadkana waxa ay leeyihiin waa daroogo weeyaan waxaa laga keenaa bariga afrika iyo waxaa laga keenaa bilajaziirada carabta baa laga keenaa qaadka oo kasoo gala waddanka Sweden waxaa laga qaadayaa tijaabo inuu qaad yahay in kale waa bac lagu riday maaragtay calayn ka tirsan waa la muuseeyey ama maaragtay waa la jajabiyey buu leedahay marka la jabiyey kadib dheecaankii baa laga qaadhayaa dheecaankiiba waxaa lagu taabtay qalab lagu eego inuu daroogo yahay in kale anfetamiin ayuu u dhigmaa kadin la yidhaahda oo daroogo ah
qaadka man gör oftast det i sociala sammanhang. waxaa loo isticmaalaa waxay tahay inta badan in lagu haasaawo oo qofka markuu cuno maaragtay uu noqdo qof maaragtay u baahan inuu haasaawo Sådär då. Ska vi waa tijaabinaa bay leedahay arka Ett knippe kat på marknaden kostar mellan 150 qaadka waxaa uu joogaa bay leedahay 150 karoon ama wadanka Sweden weeyaan iyo ilaa iyo 200 karoon waa $15 inta yariista aragtad iyo $20 buu joogaa leedahay det testigii baan qaaday tijaabadii baan qaaday bay leedahay varit negativt så hade det blivit 1. negative hadduu aan lahaa 1 wuxuu noqon lahaa 2 laakiin hadda waxa weeyaan wuxuu noqday positive buu noqday حتى وحنا وقاعدة تبلد بوليسكا محكمة بانجينيا بلدها حيرة جود بان عبدين تقويان عبدين بان هلي بلد واتروجو narkotika som ger en centralstimulerande وحويان تروجو ويان قاد كبلدها سامين كويشا دريمها قفة تاوين كويشا وقف كدريمي سكعية سكر وقافك وكان يقف تروجو يصير أم قف معرتي عبسين بوكر يا بلدها محكمة دي بالسارة ما كده بالتشوقات codka aad maqlaysaan waxa weeyaan waa wadan ka mid ah wadamada reer Yurub oo Sweden oo qabtay Chad meesha maxaa ka garanaysaa marka waxa lagu fidnaynayo waa Soomaali meel kasta ku nooshahay sida awgeed waxaan soo jeedinayaa in la helo hay'ad ay Soomaali leedahay oo la dagaalanta qaadka sida awgeed soo noqod wanaagsan waa anigu Axmed Sacaad waas Maxamed oo aad uga xanuunsanahay dhibaatooyinka ay qabyaaladu iyo qaadku ku hayo ummadda Soomaali weyn balse way fududahay sidii la siga caabin lahaa labadoodaba soo noqod wanaagsan waa anigu Axmed Sacaad waas Maxamed wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh